Ma ogtahay kalarka kaadidaadu inuu wax badan ka sheegi karo caafimaadka jirkaaga? Kaadidaadu waa dhiiggaaga oo la sifeeyey, waxaana sifeeyey kelyahaaga. Caafimaadka jirkaaga ku sugan yahayna warbixin fara badan baa waxaa laga helaa qaabka ay u eg tahay kaadidaadu. Haddaba si fiican u dhegeyso. Kaadidaadu hadday caddaan clear tahay oo aad u caddahay, waxay sheegaysaa inaad biyo aad u fara badan cabtay. biyo badan inaad cabto ma fiican tahay mise way xun tahay? Biyaha inta loogu talagalay waa okay. Haddii laakiin aad biyaha u cabto, waxa dhacaysa in macdanihii jirkaaga laga maydhayo sida sodiumtii, qofkuna uu yeelanayo dawakhaad iyo madax xanuun. taasna ay la mid tahay qofku isagoo biyo cabin oo kale. biyaha cab, laakiinse xaddi kugu filan cab oo ha badsanin ilaa xaddii ay gaadhayso kaadidaadu inay caddaan clear noqoto. kaadidaadu hadday huruud tahay, sidan oo kale huruud hadday tahay ama jaalan filaya, waa normal. waxay sheegaysaa in kelyahaagu normal yihiin, dhiiggaagu normal yahay, kaadidaaduna ay tahay sidii laga rabay. ka waran haddii kaadidaadu ay tahay kalarka casaanka ama pink, kalarkaynu naqaano basaliga, waxay sheegaysaa horta in kaadidaada uu la socdo dhiig. waxaa keeni kara sida caadiga qofka hadduu caadadii waqtigeedii ku jiro way soo raaci kartaa, wayna noqon kartaa infection. kaadi mareenka hadduu jiro way noqon kartaa. keliya xanuunku wuu keeni karaa. laba mar bay xaaladdan normal noqotaa. mid waa tan idiin sheegay qofka hadduu waqtiga caadada ku jiro, iyo tan labaad oo qofka hadduu jimicsi aad u sarreeya sameeyo, qofku jiimka aad u garaaco, taasna mararka qaar kaadidiisu kalarkan way noqon kartaa. laakiin intaa wixii ka sokeeya waxaad u baahantay inaad dhakhtar u tagto, lagu baaro, lana ogaado sababta ay u noqotay kaadidaadu xaaladdan. waxaa kaloo iyadana xaaladdan keeni kara xaalado aad iyo aad u halis badan oo mararka qaar u baahan in markiiba laga gaadho qofka oo laga daweeyo. ka waran kaadidaadu hadday tahay kalarka oranjka ama liimiga. kalarka liimiga hadday kaadidaadu tahay, micnaheedu waxa weeyaan inuu flavor amba la socdo kalarka noocani mid bay noqon kartaa. waa tan koowaad, waxay noqon kartaa inaad isticmaasho faytamiinada kala duwan ee kiniin ahaan loo liqo. faytamiinada qofka hadduu liqo kalarkan oo kale way sameeyaan. sidoo kale waxaa sameeya dawooyinka qaar kalar ama flavor la socdo oo midabkan ka dhiga. marar aad u yaryar haddii qofka xamiitida ama beerka xanuun jiro ayaa xaaladani timaadaa. haddii aanad ogeyn inaad fitamiin qaadanayso amba aanad ogeyn inaad kiniin qaadanayso, kalarkan kugu keenayo, waxaad u baahantay inaad dhakhtar u tagto, waxaad u baahantay in lagu baaro. ka waran haddii buluug noqoto kaadidaadu. sidoo kale buluug hadday kaadidaadu noqoto, dawooyin waa inaad qaadanayso. in badan dawooyinka qaar ayaa qofka ku keena. sidoo kalena waa inaad dib u xasuusato ood eegto cuntooyinkii aad cuntay. cuntooyin fara badan oo faleefaro green la socdaan baa jira oo xaaladda qofka sidan ka dhiga, ama kaadida inay kalarkan buluugga noqoto ka sameeya. hadday ka waran dark brown noqoto, ama kalarkan dark brownka u naqaano, dark brown hadday noqoto kaadidaadu sidan oo kale, amba ay aad rasiin u noqoto, waxaa weeye biyaha kugu yar. waxaad u baahantahay inaad biyo isticmaasho.